حفلتنا waxay ku saabsan tahay taageerid ay taageerayno turxaan bixintii xisbiga kulmiye ee awgeedeen muddadii dhoweyto ee ka dhacday magaalada Hargeysa sidaa daraadeed xafladda furitaankeeda waxaan siinayaa gudoomiyaha gobolka وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. xubnaha magacyada ama xilalka kala gedisan sita hadday tahay dowliya iyo haddii ay tahay mid dhaqanba iyo martisharafka kale oo doorka koow ka yahay ee halkan isugu yimid waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan leeyahay munaasabadda caawa halkan aan isugu nimid ee ka dhacday Hargeysa xisbigu inuu xisbi dimuqraadiya yahay doodi karo wada hadli karo wax falaqayn karo arrimaha isku qaban karo kana heshiin karo ayuu xisbiga kulmiye muujay. waxaan leeyahay inta halkan fadhida ama gobolka Togdheer xisbiga qaybta ka joogta ee xilalka ka haysa taageerayaashiisa iyo inta kale ee gobolada kale joogtaba waxaan leeyahay xafladda dhacdada iyada ah waa dhacdo aan loo arag isxaqagashiyeed ah turxaan bixin iyo wada hadal iyo dimuqraadiyada ha ku farxaan oo ha taageeraan. waxaan leeyahay aan ku wada ciidna caafimaadsan caawa halkan ku wada ciid caafimaadsan hadal badan odhan maa ummadda reer kulmi haddii inaan isku soo yarayno madaxda qaranka iyo saxaafadda xildhibaanada waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. sideedaba horta halkan caawa waxaan isugu nimid waxoogaa yaroo in dhaweyd aada loo buunbuuniyey oo ahayd waxoogaa aaraada laisku yar dhaafay xisbiga kulmiye dhexdiisa oo muddo dad badan inay ka faa'iidaysteen oo loo dhigay dadka qaarkii marka ay u dhigeen inay tahay halkii kulmiye ku kala tegay. waa dabeecadda horta bini aadamku dee khilaafka iyo aaraada in lagu kala duwanaado waa shay dhaqana oo sunno kawniya wey wax jiro wey. al-asaabic mush mutasaawi waxaa lagu kala gedisanaanaya ra'yiga fikradda aaraada laakiin waa lagu kala tegay jabku waa in lagu kala tagaa waa lagu kala teganin. xisbiguna dhaqankiisu waxa weeye in la wada hadlo la doodo laakiin aan la kala tegin. waan ku hambaliyeynaynaa guddidii iyo raggii ka shaqeeyey isu soo dhaweynta aaraada kulmiye dhexdiisa ka muuqanaysa waan ku hambaliyeyna ragga isu tanaasulee dhegaystay wixii guddidu ay tidhi ee raggii dhexdhexaadintu ay yidhaahdeen iyaguna waa ku mahadsan. nin baa la yidhi inankaaga gartiga waa laga helay ma qaatay buuli haabale dhalay buuli iyaguna waa ku mahadsan. odayaasha xisbiga waxaanu leenahay dee raggaaga ama raggii mid aarada idinku khilaafay iyo mid idinku waafaqsanba waa laga heli karay. haddana inaad waxaagaba isku jiidato oo aada isku wadato oo aada ka shaqayso sidaad isugu wadi lahayd fikradaha qaarna waa lagu kala duwanaanaya qaarna waa lama taabtaan waa fiicanta. ummadduna dunida lagama wada helo in ummadoo dhan ay ku taabacdo. kownkan aynu ku noolahay ilaahay subxaana watacaala rasuulkii ugu dambeeyey u soo diray nebi maxamed waa kownkoo dham inuu taabaco kama wehel bal iskaba daayo kuwii aabihii la dhashay buu ka waayay inay taabacaan oo qaarkood gaalnimadii ku dhintay. taa waxaan uga socdaa isku wado ummadda markaad nin madax raacayka
waayo marka adigu kaaga ku yar khilaafsan ka guurto waxa ka horeeya ninkiisii khilaafsanay kiisii taabsanaaba wata waxaan xusuustaa mahmaah xikmad oran jirtay doofaar wacalkii la jiro xikmadaas oo kelmad hadalkeedu dhadhan u baahan yahay doofaar wacalkii la jiro marka hore waa doofaar yaa dadqaadka libaaxa dhaca dawladu ku aloosaya duhur buu bareeraya macnuhu waxa weeye haddii libaaxu iskhilaafo kala tago bahalka doofaarka xayawaanada aadka ugu liitaa uu ka adkaanay macnuhu sidaa weeye xikmaddaas saas noqonaysa khilaafku wuxuu leeyahay sidiisaba dhibaatadaas u leeyahay laakiin waan taacsannahay isu soo dhoweynta iyo isu soo dhowaanshaha labadaba waan taacsannahay anigoo ku hadlaya afka golaha deegaanka degmada Burco dadweynaha afkiisa ku hadlaya waxaan ku celinaynaa inaan taacsannahay heshiiska waxaan uga faa'iidaysanayaa caawa qaranka waxa u taala hawl culus howlo culus baa u yaalla wadooyin dhaadheer aad u adag baa u yaalla howlo dib u dhiso oo qaranka dib loo dhisayo ayaa u yaalla ugu weyn oo wadada Ceerigaabo wadada Ceerigaabo ayada laftigoodu ujeedooyin badan baa laga faafiyey maanta waxaan umaleynaya haddii cadaalada soo baxdo inaan gacanta lagu celin karin oo raggii lahaa waa doorasha lagu doonaya ama waa campaign maanta waxaan umaleynaya iyaga laftigoodu inay tahay wax u muuqda wadada iyo hawsheeda dadweynaha reer Burco waxaynu ka qayb qaadanay qaaraankii loo ururinayay wadada Ceerigaabo mar labaad waxaan ku celinayaa gobolka dee ugu xigeenahay gobolada Soomaaliland ee hore ee waaweynaa marka aanan ka hadlaynin gobolada cusub gobolada eeda la yidhaahdo ama degmooyinka eeda la yidhaahdo degmada ugu dhow baynu nahay innaga waxaa laynooga baahan yahay inaynu marka horena waanu ka qayb galay wadada Ceerigaabo iyo dhismaheedii iminkana inaynu mar labaad iyo mar saddexaadba aynaan joojinin ka qaybgalka aynu gacanta iyo maalkaba kaga qaybgalayno hadalkaygaas wuxuu u dhacaya degmada Burco dadka joogga ee ku nool gudaheeda iyo qurbo jooggeedaba aan gaarsiiyo kelmadda oo dawladda gacan weyn laga siiyo sidii loo dhamaystiri lahaa wadada Ceerigaabo annagu raggii berigi dhaweyd tegey baan ka mid ahay hore Ceerigaabo ma tegin berigii dhaweyd raggii tegey baan ka mid ahaa Ceerigaabo calaa in jooga waa la arbaa la yidhi qofka Ceerigaabo mar tagaa wuxuu sameeyay talo maxaad u xanaashtaa wadada u dhistay waxaan ku celcelinaya wadada Ceerigaabo in reer Burco ka qayb galo halkayga waxaan kusoo gabagabeynaya badan baa iga dambeyn doona haweenka qarankeena haweenweynaha goobta fadhiya odayaasha cuqaasha dhalinyarada bahda saxaafadda waxaan ugu salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu caawa xafladan aynu maanta taageerada ku bixinayno waxaynu u qabanay baryahanba waxaa socday dacayado fara badan oo kulmiya wuu burburayaa iyo kulmiya wuu jajabayaa oo suuqa ay macaaradku ay marinayeen run ahaantiina meesha marka wax la toosinayo haddii meesha khilaaf ka yimaado waa meel ay si wacan oo miiskan aynu halkan dhigno iyo aynu halkan dhignaa laysku qabanaya laakiin waxa weeya lagu kala tegi maayo kulmiya waa baha weyn oo bulshada Somaliland majoritigeeda khilaafaadna wuu ka dhacayaa dee rag baa magaranaysa tartan iyo ra'yi iyo intaba waa laysku khilaafaya laakiin waxa weeyaan kulmiya horta kii kala tegayay maya kulmiya kala tegi maayo horena muu kala tegin maantana ma kala tegayo runtii waxaan mahad ballaaran u soo jeedinaynaa marka ugu horeysa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Axmed Maxamuud Silaayo oo xulay markii xisbigiisii uu arkay iyo dadka bulshadu siday u hadlayaan iyo macaaridku siduu ina leeyahay hadlay oo guddi dhexdhexaadina oo khilaafaadkan yaryar ee ku dhex jira dhamaysa
ومقعابي آديات بانو ومهد علينا وحنو كلام ومهد علينا جزء دي دحدحالينتا خلاف غير اللي يسوها يوم وحباهين والكرسي هل كان كدنا يا أنا كدنا وحوي وتوسين مركا وحلا توسين يو كله ويمنا يا خلاف لكن توسيتي إن ده ميلو وده شفتوه مثل نعمل له نقول إسحاق ورنيك هل كان يلو وناكسن هل كان يلو وناكسن ما شاء الله مركا آديات بيجمعوا مهتين وأنا نتاجر إن حسبنا وحوي الحسب بلادن وديمقراطية وحويان وجيت لا جيت أيو حسبه ما أنت دافي سيسا مركا وحنا لا يقولي كفر حلاهاي لهاي حسبه بربريا إن أنا بربريا نوتو أيام مرة بينوش يدينا والما تتعاون تاجرنا إنه هتين نقبل كتقدر يحبني حسبه تاجريات وديبا aynu maanta halkan ka taageerayno kuna hambalyeynayno guddiga khilaafaadka dhameysay iyo hogaankii xisbiga kulmiye ee hogaaminayay maantana waxa weeyaan xisbi taagan mid kale oo aan anigoon cidna duraynin caawa waxa weeyaan xisbiga kulmiye xukuumaddiisii ka dhalatay iyo madaxweynihiisii iyo wasiiradiisii maanta wax qabadkiisa ay dalka u qabteen waynu arkaynaa waxa weeyaan ninkii qalbi wanaagsan إنه وناسن يعقل وناسن اللي هو أركي يوحي يقبلني حكومة الحزب يقول لي ما أنت قبضي وإنه أركينا وما أنت كمان لا يودنا محمد سيلاي كنت مرة إنه ده يقبلنا إنه يسكو قبلنا والله يا محل قبلنا وحوي حكومتي أنا حسب قالوا كذا شيء وحويان وحقبت كان حكومته ما تقبتنا حسب كان حكومته كذا لسي حكومته ده شيء أيا كياني يوه جامعي ما كيورنا حسب هو جامعي ما كان جمهورية سومالان هو جامعي أنت كريا إنه لنا وحويان وحنا عارفينا ما أنت وحقبت كذلك هذي ودوين هاي هذي عافمات هاي هذي الريمو برشة هاي هذي أي ودوين هاي وما أنت وددا عرقابة وبلادن إلى أي ما أنت إنجليز كي أي دولة دي كذب بيه أي دي سكروايه ما أنت حكومة مدحوين السيلايو أي وبلادين إذا حديكتو وأيكو حاسو waxay sameeyeen mucaaradku waxaan macquul ahayn oo maanta aan laga yeelin waxay yiraahdeen hantidii wadada loo ururiyay ayaa campaign lagu galay taasna been bay noqotay oo waa tiyaadarkayseen habeenkii dhoway saxaafada laga mariyay lacagtii soo gashay haday dollar ahayd iyo haday diinaar ahayd ba saddexda koon ku jirtay waa tii layno tusay cagafyadii u horeeyay wadada lagu dhaqaajinayna waa tii TV-ga laynaga tusay waxaan u malaynayaa inay xajileen nimankii ku hadlayay lacagtii wadada la cunay lacaga koon lagu shubay oo intaasoo qof saxeexaysan qof maanta cunaya ama u badheeraya ma jirto xukuumaddu si wax qabad badan bay samaysay oo miisaaniyada hadday noqotay hadday dhaqaale noqotay hadday dhinac kastaba noqoto maanta waxa weeyaan xisbigeeduna maanta wuxuu hore ugu marayaa anigu waxaan qabaa in marka dambena kulmiyad loo dooranayo 3 sanadood soo socoto oo xukuumaddii kulmiyad ka dhalatay ayaa wax qabad muujisay dabadeedna xisbigiisii maanta dabadeedna taageeradii bulshada way ka helayaan hadday tahay dhalinyaro hadday tahay odayaal waad ogtihiin maanta xukuumadda madaxweyne Silaayo inta xukunta dhalinyaro u badan yihiin barnaamijkii buugii uu kulmiye qoray ee ahayd dhalinyarada inuu hormariyo haddii agaasimeyaal tahay haddii wasiiro tahay haddii ku-xigeenna tahayba maanta jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxweynaha waddanka maanta xukumaa wuxuu ku dhacay oo kalsooni siiyay hadday tahay golayaashii deegaankaba inay maanta shaashada inoogu jiraan dhalinyaradii waddanka iyo wixii soo korayay oo ay meel walba maanta hadday maayirra yihiin iyo hadday wasiirra yihiin iyo hadday ku-xigeenna yihiinba ay maanta haystaan oo ballanqaadyadii maanta الحمد لله رب العالمين كل مية بهوين تيس وحويا ويسكو حرتها وحويا ما بربرايو إنكنا تاجر دا نعاود بحنينا وتاجر دا وقالوا حسب كل مية وحنا لنا الحمد لله دي خلاص
دماغي لكن حسب هو الديمقراطية وحدنان معي إلا يتصوش الرحال وفرة تستوكا وقولوا وحليني حبين كستوى حسبنا كميد وحنوي دوران كتاوانا الله دوران كرا مركا هالكا الديمقراطية دينا وحينو لأنهاي هلو إن هنغان سنادو وشرعيك iyo qaybunka uu dhigayo dastuurka xisbigu aynu ilaashano alxamdulillahi rabbil aalamiin rabbihi nastaciinu calaa umuri dunya aan istageysano in yar aan istageysano fadlan aan istageysano بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين اما بعد لما انت بوحد الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسلام دبدين aad buu baaxintay runtii taageerayaasha xisbiga golaha dhexe xisbiga waxna badan ay ka joogaan golaha deegaanka dad badan oo mas'uuliyiin ah sida xogeyaha fulinta dowladda hoose mas'uuliyiin badan oo xisbiga u jooga heer qaran iyo heer gobol iyo heer degmaba ayaa jooga waxaan leeyahay maanta xafladan aynu isugu nimi waa taageero aynu taageerayno waxaan caawa taageeraynaa guddiga khilaafaadka xalinta khilaafaadka xisbiga kulmiye ee uu magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siinayo waxaan leenahay hambalyo ilaahay baa mahadle aad bay u mahadsan yihiin xubnaha loo magacaabay inay xalinaan khilaafaadka runtii waxaan leenahay waxaad muujiseen qiimayn aad u weyn waxaad muujiseen isu soo dhawaan waxaan kaloo halkan ka hambalyaynayaa gaarka xisbiga iyo dhammaan mas'uuliyiinta xisbiga oo yeelay wixii loo soo jeediyey ee tale iyo tusaalaha aad bay u mahadsan yihiin waxaan leenahay xisbiga kulmiye ha noolaado mar labaadna ha guulaysto tartanka labaad ee aynu u taaganahay insha allah waxaan rajaynaynaa in aynu guulaysan doono soocaynkaa maaha السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركورة وحنا القيادة السلام يا الله صدق يا شيخ بدك صدق بارك الله بك وحنا يا الله بريين يا هذا هو أمشي إيه جارين أنا مش عارف وحنا ليه ملك السبب شو ما نقول عيال جوا القضية إلا شو قبتنا ولا جيش يبان يا لك كذا وعليه قان كسر حي وطاقة سنهاي وقان عواد خوش في عيهاي وقان ترف صوب حي وأنا رجينا هدينا هاي كذبه وحي كذب بينا إلى خلاف يمنين أي نقلان قارة ديمقراطية يدستور يسياسة عطف الشرعية إن شاء الله بسم الله الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عقاشة كنت مناسبة بدن وحي جودة الوجهي ثلاث عتابة حسبي وكلية وأنا سعودي وبعيد وشري خلافات أما إما تحدثوا ذلك الشيء وهي خلافات تنتبوها إن تنتهي يصبح كنشري وهنا مارتين وهمتي حاجة والبعين كوزك الجري ومرواصل شوي سيابة الحمد لله وجود دي ومدحونه وصارين صراحة تطي ويسكنتي إلى وين تطلع على حي إلى يسكنتو مالت اليوم منا وصراحة شوي حضرنا تاسع مارت حفلة الكساسة وانا الحمبليين إنه وجود دي في حفلتها ومدحونه مقعاوي ويسوق مدحونه مربوطة وحضريننا waxaan doonayaa halkan runtii inaan fursadda maanta ka faa'iidaysto oo halkan aan ka jeediyo baaqaasaan jeclay inuu gaadho hoggaanka xisbiga waan jeclay warbaahintu inay runtii baaqaygaa gaarsiiso waxaan anagu ku talagalnay markii hore maadaanu shir isugu nimi halkan haddii ay bishan dhammaadkeeda dhici weydo in guddiga turxabixinta madaxweyne magacaabay ay heshiisiin weydo xisbiga horta annaga waxaa naga goday inaan ku soo wareejino furco annagoo maadaama xisbiga annagoo waxa jeclo ka lehnay reer balcaddan inaanu halkan ku heshiisino laakiin taas
الحمد لله هوشي أنا دوري إنه أنا رجع فرطي مركب أول حملين واحد دوري إنه حملين أنا ما كان كذا شيء يا بابا وحسبي رنتي هذه هو كلامات زي لبعض وحرمتي حسبي ويقول لك لما دي كلية استدعي يا لما دي كلية توكي يقولني دايم يبتدي دورش العيسى حسبي كلية وهلك وكان عطوا جوكا وانا هلك لقاها markaan ka hadlo gurigii deegaanka kulliye isagoo u rabaan tartan annagu hadda xilwaanay isagoo u rabaan tartan annaga soo saarnay annaga hadda ma xilwaanadii imika halkan labiyo toban ku nahay degmada iyo meel kasta oo joognaa waxaan qabnaa xusbiga kulliye annagu soo saarnay waxaan hoggaanka leenahay iyo gudida qabanqaabada waa inay diina furtaan waa ina ku xisaabtantaan cidii xusbiga soo saartay ina ku xisaabtaan حسبي جود قاعد برزكاي وانا جود قالوا والله قالت وانا بدي كام بغير مو كتير انا كنت وياه مو كتير من ولا انا واجب كله يعني يوم كوش غيري صرت ربع هاي من دول ما waxaan kula shaqeynaya xusbi ana yeelay xusbi ana leeyahay bajiro حسب الذين يتبعون وحلك هيسان ما داموا هيسان واحد ضرب قوتين وانا نريدكم هذا غينا ولا يمكن شغيرنا وحنا يا كفر احسن هاي خلافات في كذا حياه تشبه كليه او صار ماضي وحنا يا نقول هاد علنا يا بدنا خلافاتك او قربا كل نجا هاي خيراتيه وأنا سأعمل أطلع وين بقول كتبنا كل ده أنا كمان إلى هاي لما نخبر يا رجل ولا كذا ليه إلى هاي خير كمان بدلوا وحماد يا السلام لنا ونقطع كم هاي هجان كابس كل مية أي ما دي أبو كتب هاي كم هاي حملة نحن كلا يبغى بدنا يبغى نكتب شقية إن شاء الله قرآن عالي أرسوله إن شاء الله بإذن الله كرام ياشي معي هيدا دقة هيدا ملحق الدورة دورية حاجات كعوبة دورية كناو ملحق شرفت الفضاء هيدا شيء السلام يا سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan kaloo ka raadi gelinayaa dawladda maxay hayleeyeen xildhibaanada fadhiya meesha inta yara lagu saray baan ka raadi gelinayaa aad baan anaga ka raadi gelinaynaa runtii shaqada qabataan waa shaqo fara badan shaqada halkaad ka soo gaadheen hawsha iyo halkaad ugu timaadeen iyo intaad ka qabateen ayaa kala badan wixii la isu dulqaataa wixii daliilaahay ka jira waa in la isu dulqaataa وانا بدي كذا اللي قلنا يا هذا تهين قبل كتبنا أما تصدق ماذا بقى هالكان واحد كلام شيء يا خلافات كيف يسبق كل مية واحد معاهم من عبادة هالكان هم طيب بدل الله ما يمني عبادة كقفك قبعة على كلا وقت كلام بقنايا عبادة واحد نون مين عن تاجرنا حسب جاي كل مية خلافات كي يرساك على ضحك علي ديمقراطية ذاك ينسي ديمقراطية عليه إما يسقطه إما وحلا يسوشيبه وأصلا دمية وين نور دماتي وين نور دمية سبار يا تاجري أنا إسرائيلي تاجرينه أيام هالكلام وهي عرفتني عن ولا نحنا مرجع أيام نسوشيبنا كل تورثكو وحوسكير التجران لكن ما كانوا نجارينا وأنا عواهي واحد كمان يشجع وشجع wadada ceerigaabo maxay heday dadba waxay ka dhigtaan campaign ku gala waxba kama jiraan sidaaya dhagax meeliga uu ka tagaa dad baa ka dhigta campaign oo campaign-yada ku gala taana waxaan ku leenahay waxa lagu maahmaaha cadceeda sacabka laguma qarin karo ayaan taana leeyahay markay muuqato maxay ku hadli doonaan runtii hadal badan aan halkan ka oran maayo oo waxa ka soo sheekiyay madax badan oo iga horeysay odayaal badan haween badan
أيوة حسب كاشرسن هي هالكن كاشيكي هبين كان مرتبطي وهبين آدية القيمة له وكنتي واحد لو فرحة وهبين عيدة لو تلمام كرسي برصة في المامي حسب كان كلية حسب الحاكم كا وحسب آدية أدو بلارن وأفرت الدافود السومالي لان أي كوض الموضوع وديمقراطية جسدها متطبح وحلالة waxaan kaloo idin sheegayaa xisbigan oo ah xisbi dimuqraadiya oo uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo runtii waxyaabihii uu markii uu xisbiga gudoomiyaha u ahaa ee uu doorashada doonaya wixii uu ku ballan qaaday boqolkiiba 80 maanta uu fuliyay runta marka laga hadlayo وإن شاء الله تعالى وحي قضية كل ولا قضية لواي ما هي وواحد عن الله حيو هي واحد إن شاء الله تعالى للدنيا ترى المسرور لقبت إن شاء الله تعالى إلى هنا هو يقول قولين يا دي الله خالق النقطة مناسبة وحوي سومالي وحكم مع عربية اللي بدي سدان بس وحوي خلاف ما هنا وحسكاحد حوار مشاورات أراد ولوك لدون كرا أصحابتي النبي عليه الصلاة والسلام كذب لي مركي خلفاء الراشدين كي أبو بكر الصديق مربى حمري ما أبو بكر باحلك اللون إيبيا مع عمر بالون هكا وكم كاش هذا الخلاف مو هينا وحلورة كروا مشاورة وأرال سويدين كروا واتي أي هذا الرعان سنه النبي عليه الصلاة والسلام إن أبو بكر الصديق غير عمر سؤال هو وفاة كيسو إنه لا أبو بكر بادت كتوشينية إنه لا أبو بكر باتلنا لويدينية يسوون عرب كلهم بحال كلا بسوا مشاورة عطيهم التاس واحد معنينا صح إن أبو بكر الصديق خلد اللوني فكانوا حوالي حسبه حديق وحسويدية أراد ولوك الزوانكا فكر كوالله وانكا لكن محب بيت القصيد كل غنية إن مكدم به لسوي ما ضو هل كي تبطأ هاي لسوي محاش تاسع مركا موجينسا لما أورن كرو وحبا كلاقواي هي اختلاف وين بعد حيال هي مربع ماشي كده حيال هي حسب باب القرية من المنكرات وحوي هو مشاوره على لو كلا دوران كرو تاسن واحد عليه ذو النقطتين إن آخر كل سويمي أو أي كل ماطي أو مناسبة يعني حفلة تنعوى كل سنة أي نشاط يلا إن شاء الله تعالى وقت منو بداية هاي حبيب وناسون العيدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمد وحا كسبدا ولغو هغامكا وطاعدمنا لو طاعد نقضة جريتانكينا iyo hoggaankeeda marka waxa fura waaqica dhabta ee taajirka ee la taaban karo dadku in badan waxay ka xuseen waxqabadka xukuumadda maanta jirta lama dhamaystiri karo runtii maalin habeen iyo birtoona lagu dhisi karo wax la dhiso waxa u qiimo badan waa bulshada iyadoo aan runtii xisbigii hore talada hayay ay noqotay hantida ummadu in la goobo oo la cuno oo qof walba wuxuu doono uu qaato ayaa madaxweynaha iminka talada hayaa Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo uu ku guuleeyay ilaahay inuu gacanta ku dhigo talada waddanka markuu ku guuleystay wuxuu sameeyo waxa ugu horeeyay guddiyo la tashi oo ay u leeyihiin hantidhowrka qaranka iyadoo la ilaaliyey oo hanaaniyey loo farsameeyey oo loo cadaaladeeyey hantidii ay ummaddan lahaayeen waxaad dareemi kartaa wasaaradihii qaranka ee mustacmaradii ingiriiska ay ka tagtay ee taanaha ereeda gaagaaban ahaa maanta inay yihiin sara qiimo leh oo dhaadheer oo aqalkan aynu ku jiro iyo wax kasii dhaadheer ay yihiin oo haybadooda iyo sharaftooda marka aad aragto qofka caqligiiyo garaadkani ee dalka wax guli uu mahadnaqaayo cid kasta oo gacan ka geysatay dibudhiskooda hanaanintooda iyo hagaajintooda waxaad dareemaysaa
ciidankeenii qaranka ee isku midka ahaa jenaraalka iyo taliyaha ciidanka iyo askariga sugayga isku midda ahay waxa maanta loo qaybiyo la siiyey 10,000 oo derajo oo waxay taariikhdu xustay in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo laga marakacayaa uu gacantiisa ugu xidhay sareeyihii gaaskii ugu horreeyey ee qaranka uu yeesho ee ina shaqadaan taliyihii ciidamada ugu horreeyey ee uu boliis yeesho qaranka uu leeyahay oo jenaraal fadal ah oo sareeyey guutaa taliyihii ugu horreeyey ee ciidan badeed oo qarankan uu leeyahay uu admiraal gacantiisa ugu xidhay kiyaas lugtaa la mid oo brigadier general ciidamada waxaad dareemaysaa marka aad eegto waxqabadka dhabta ah oo waxbarashadii ilaa heer jaamacadda free laga dhigay oo ay xukuumaddu bixiso waxaa loo hayaamay in la qabto waxyaabaha ama waxa la qabto waxa ugu culus waa wadooyinka GI-ka dhisi karin maanta wadada ceeri gaabo iyo fuucaan isku xidha waxaa u badheedhay xukuumadda wuruudka ka yahay Axmed Maxamed Maxamuud Siinaay waxaa kaga tagayaa ardayga raggu talada waa looga leeyay waa la isku qabanayaa ninbaa inankiisii la dardaarmay wuxuu dacay gaaska ka tago aabba uu yidhi geela mahabbaynu sidayna haabu dhaafay geela habu sida geeliba habuu siday aabba uu sulxidaba geela waqooyi sidaa ka waran aabba wakay buu laakiin geela waqooyi u siday aabba geela bari u sidaa buu sulxidagay waayay buu aabbo meel wacan galbeedna aabba u sidaa aabbo meel wacan buu galbeedna intuu lagaday buu war geela lagu khilaaf danta ummadda ah in lagu murmo in la isku dilo in lagu kala kaco in lagu wada hadlo in lagu wada heshiiyo waxaan uga jeedaa wakti badan iyo hadal la yidhaahaa muu harin waxaan filayaa xisbiyada mucaaradku hadday u fadhiyeen inay tartan galaan weli inay qalbiyada bulshadu ay qiimayn ku samaynayso madaxweynaha qaranku wixii uu qabtay uu yahayna intii Soomaaliland jirtay ninkii ugu waxqabadka badnaa taariikhda igama aha dhankeena qaranka ka hayo inaan ilaalinaya xaq baanu leeyahay codkayga iyo fikirkayga ma iyaanu guurode laakiin hadday kuwa mucaarad wax dhaba taageero taageeraya waxaan leeyahay dadka qaar اسنتي ما قبل يجري ما كيسمعنا هبلوا مجاهد يا هبلوا تبع الرع أنكم مقالة صنعان وشوبان حافظ مطابع أيام الأحوالات وليد السمال لا يمكن داير يا رب فيكم الاستثناء طبعا سلا يبقى محفظ وفر اليوم أيها همبلي أنكم محفول كاسا تاقير يا عاو سيدة الجرقة اللي حج عليه ee Afrika jooga ee Soomaaliland jooga ee diiday isagoo Soomaaliland intuu ku badnaa ka dhashay diiday inuu ku dagaalamo 80 cod oo ilo waa macasalaama maxay dhacday waxay kasbatay inuu 100% codadkii jamhuuriyadda Soomaaliland ويسوي وانتفاضة شعبية علينا لماذا حزبية كانوا كتبوا يسويها فقالوا حلاه تاغيرتي وضحوينوه وليها الكيلي تاغيرتي حزبه وحرم بريان يقول لها تروحان صارك خلافات حزبك يروقانك حزبك يتاغير ياشا حتى تلاهين أنا تبكي حلقة قبطبانا حزبك كلية راها حتى تلاهين تاغير ياشا يدي قدوما رمكيهاي وأنا قلتكتين إذن ما لاني لاويني مدحوينها قرمكم مدحوينها قرم markii hore 49 ayaa xisbiga kulmiye ku guuleystay codadkii dadweynuhu ay bixiyeen markay labada xisbi qaran ee kale oo cidiyadu baahaayeen ay aqbalay natiijada saacada wuxuu noqday madaxweynaha qaranka mid mucaarada mid muxaafida mid naciyo mid jecel waxaynu leenahay
هذا من هم ما لم يحمد كتجيا يوم من الأيام كتجيا قف الصوت العيا وحلاي هل كمان تورو يهلكوا على جسيم بقاضي عاون وتامتي سامو كترو وحلاي هل كان على جام بقاضو هل يسكت يدو وحلكوا بريزولي هذا كلنا لا ولا يقول سكرة وحتى كبير يقول يسنو صوت واطن توحي وهم المشاكل أيام أنت يعني ردوا برعاية أنت وسافروا ولا تسوي تبديبوا لك ما كان كوسو قالوا عسكري بيسنو ميليتريا مسؤول أما بوليسا أما قوة بطة إدريس كقول كبرنا إلى إبراهيم ما نرسل صوت هذا الرجال كان قالوا مالك وحنا قبضي وحنا يتاريخ عزة وطا حزبنا كل مية حكومة ومدحوين ومدحوين أحمد محمد سيلان الله يسلمك أرجع بنا علينا شكرا لله لا سنبيك Allah